kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamij kale oo aynu kaga hadlayno kuna falanqeynayno sheekooyinka suugaanta iyo fanka Soomaalida. Haddaba maanta waxaynu ka sheekeynaynaa sheeko aad iyo aad u xiiso badan oo iyagu dadka fanka Soomaaliyeed falanqeeya ama ka faalooda ay ka hadlaan, adiguna si uun ay kuu soo gaartay. Haddaba waxaynu isla eegaynaa qisadaasi ma tahay mid sax ah ama waa mid been abuur ah oo laga sameynayo qofka lagu tilmaamayo sheekadaasi. Haddaba dad badan oo ka mid ah dadka ka faalooda suugaanta Soomaaliyeed ayaa iyagu ku eedeeya mid ka mid ah abwaanadii Soomaaliyeed kuwooda ugu caansanaa kana mid ahaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed. Haddaba dadkaasi fanka Soomaaliyeed ka faalooda waxay ku andacoonayaan in abwaankaasi heeso iyo suugaan toona uusan sameynin ee ay tahay mid uu bilileqaystay ama xoog uu kaga qaatay abwaano kale oo iyagu sameeyay heesahaasi ama suugaantaasi. Abwaanka weyn ee Maxamed Nuur Shareeco oo ka mid ahaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ahaana xilli ka mid ah agaasimihii tiyaatarka, abwaan weynna ahaa, ayaa iyagu waxa ay tilmaamayaan dad badan inuusan abwaan uusan ahaynin, laakiin uu ahaa mid heesaha ka qaata abwaanada kale magaciisana ku qorta. Dadkaasi ayaa iyagu waxay tilmaamayaan xoog iyo xeeladba midku adeegsadaba inuu abwaanku heesahaasi uusan isagu lahaynin. Abwaankaas ayaa isagu waxa uu lahaa heeso badan, inkastoo ay u badan yihiin wadani, haddana heeso kale oo jecel ah ayaa intuba waxay tilmaamayaan in gebi ahaanba suugaantaasi ama heesahaasi uu abwaanka uusan lahaynin. Heesaha ay tilmaamaan waxaa ka mid ah heesta Ducaysane oo uu qaado fanaanka weyn ee Xasan Aadan Samatar. Heestaasi ayay leeyihiin abwaanku muusan sameynin ee waxaa sameeyey abwaanka kale ee Maxamuud Dukaale Cismaan. Waxaynu kaloo soo qaadanaynaa hees kale oo ay wada qaadaan fanaanada weyn ee Xaliimo Khaliif Cumar Magol, Allah u naxariistee, iyo fanaanka weyn ee nooli waayey ee Muuse Ismaaciil Qaliinle oo isaguna Allah u naxariistee isla wada qaadeen. Abwaankana Jenaraal Maxamed Nuur Shareeco uu alifay. inay yahay dhararahan duuniga maquto sidaan dhehel labahay wanigan dhadhabay. inay yahay dhararahan duuniga maquto sidaan dhehel labahay wanigan dhadhabay. محسوس تلمسي داوعي بوغها دفتنا ذكرسي. محسوس تلمسي داوعي بوغها دفتنا ذكرسي. حمناهاغن كردي اندولاهاغن وعتلي وشيماهاغ سيدو بديدو نمودي المودي جوجل يا إلهي أني. حمناهاغن كردي اندولاهاغن وعتلي وشيماهاغ سيدو بديدو نمودي المودي جوجل يا إلهي أني. markii aan ku dheeda cishkii igu dhammaada adna waad i dhaaftaa. markii aan ku dheeda cishkii igu dhammaada adna waad i dhaaftaa. dhalinyarad weligeed hel hadday soo xadalaan dhabahayn baysiya kugu dhibaa. dhalinyarad weligeed hel hadday soo xadalaan dhabahayn baysiya kugu dhibaa. dhagahaygu kuma maqal daayahaygu kuma arag kugu dhalan ogalaye.
iga hoos mar hayga jabi dudumaho hayga shiidin duxo haydaabin anige haddii uu dhabkaay haydan waa qaadineyna waa inoo darcaarkale dad kale oo qeybaha ka mid ah fanka ayaa iyagu waxa ay ku tilmaamayaan sheegashada noocaas ah oo abwaanka lagu ijaafeynayo ama lagu tilmaamayo wax uusan haynin inay tahay mid been ah oo aan sal iyo raad doona lahaynin. waxa ay sheegayaan dadkaasi in abwaan maxamed nuur shareec uu ahaa abwaan buuxa oo cabqari ah, sugaantiisuna ay saameyn badan ku lahayd geyga Soomaaliyeed. waxa ay leeyihiin dadka abwaanka jaafeynaya ama ku tilmaamaya inuusan abwaanaynin inay yihiin dad iyagu abwaanka isqabteen oo arrimo ka baxsan fanka iyo suugaanta ay tahay, taasna u adeegsanayaan inay ku jaafeeyaan. abwaanka ayaa dad badan waxa ay ku tilmaamayaan inuu ahaa nin awood badan oo ka mid ahaa ciidamadii xoogga dalka, uuna shakhsiyan qaraabo dhow la ahaa madaxweynihii kacaanka xilligaasi waddanka ka talinayay ee Maxamed Siyaad. awooddaasi ayuu u adeegsaday ayaa la leeyahay suugaanta iyo weliba heesaha Soomaalida. haddaba adigu siday kula tahay, ma abwaanka ayaa qole ay sahayeen ijaafeynayaan mise waa sida ay sheegayaan ayuu heesaha ee abwaanada kala sameeyaan magaciisa ku soo bixi jirtay?